shirkani jiraayid oo ay maanta ku qabteen gudaha magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn gudoomiyaha golaha deegaanka Buuhoodle Cabdifarax Cali Cawil gudoomiyaha ku-xigeenka golaha deegaanka Buuhoodle Macaw Axmed Cali iyo waliba sidoo kale taliyaha ciidamada booliska gobolka Cayn ee maamulka Khaatumo Maxamuud Diiriye Cajaayib ayaa waxay kaga hadleen arrimaha ay kamid yihiin xisadaha tan ka aloosan deegaanka bixin ee gobolka Sool oo ay isku horfadhiyaan ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Puntland iyo ciidamo beeladiye ka soo jeeda deegaankaas iyagoona digniino iyo baaqiyo kala duwan hawada u mariyay madaxda maamulka Puntland iyo ciidamada Puntland ay ugu baaqeen in ay guud ahaan bas kaga baxaan deegaankaasi kana waantoobaan fargelinta ay ku hayeen deegaanka bixin ee gobolka Sool waxaan ugu horeyn bashirkani jiraayid ka hadlay taliya Cajaayib iyagoona hadalka ay uga dambeeyeen taliyaha gudoomiyaha ku-xigeenka golaha deegaanka Buuhoodle iyo waliba sidoo kale gudoomiyaha golaha deegaanka Buuhoodle Cabdifarax Cali Cawil baas oo la mid ah kii hore uga dhacay deegaanka Qurli waxaanu leenahay Puntland in hakala baxdo ciidamadeeda deegaanka Khaatumo iyo Buuhoodle haddii ay kala bixi weydo waxay u dhowdahay aqwa xumada ay ka talinayso cilibteedu inay ku dambayso in uu laamiga garowga labada dhinac ka go'o taana wax dan oo ugu jirtaa ma jirto waliba waxaan u sheegayaa dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo beesha caalamka iyo dhammaanba intii ay qusayso walow kaana daarad ha noqotee Puntland xadka ay weerarsan tahay inaanay weligeed horena wax ugu yeelan haddana dib ugu yeelan doonin sababta oo ah waa la yaqaanaa waa la ogyahay soo hodinta Khaatumo iyo Puntland waa mid maafuun oo la yaqaan waxaana ku egtahay yoocada haddana waxay weerarsan tahay iyadoo ujeedkeedu yahay inay iyadu ka dhigayto magaalooyin horle oo ay leedahay Puntland ama Cismaan Maxamuud leeyahay Ciise Maxamuud leeyahay Buuhoodle in ay weerar ku soo qaado xadkii ay iska lahayd Khaatumo Statue of the Somalia waxaan leenahay dagaalka dhabar jabinta ee ay Puntland wado waxba yeeyna noo qaban waxba yeeyna tarin walaalnimo iyo hartinimo midna waxba yeeyna ugu geysan nabadgelyo inay nasiiso oo nagala baxdo ciidamadeeda baan ka codsanaynaa haddii ay diidaan waxaanu ballan qaadaynaa haddii Ilaahay idmo in ay wax ay dib uga shanlaydo ay kala kulanto sida uu taliya Cajaayib uu hadalka u dhigay waa waxa muuqata in duulaan lagu soo yahay mandaqadan gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn meelo badan oo kamid ah dad aan lahaan jirin maanta damca kaga jiro inuu qaato ama inay qaateenba waxaan leenahay horta gudayahay ma goyseen laakiin bar aniga iga midaba ku jira uu geedka yiri geedka gudintu ma goyseen haddaan qayb geedka kamid ah ku jirin alay Puntland damaaci kama galeen haddii ragga meesha jooga oo Puntland kamid ah oo Puntland iyo Garowe dadka jooga hadday arrintan ka midaysan yihiin inkastoo aanu maqlayno in raggi meesha madaxda ka ahaa ay dadaal badan ka geysteen haddana dadkan de kuma filla in hadal la yiraahdo ee waxa loo baahan yahay ficil reer Puntland lama jeclin wax dhibaato ah inay burburaan ma jeclin inay wax gaadhaan ma jeclin qodax inay mudana ma jeclin dhulkooda in laga qaado iyo gaalkacyo in laga qaado iyo meel kamid oo kale in laga qaado midnimo ma rabno ma jeclin sida aanu jeclayn dhulkooda la qaadaan oo jeclaan dhulka iyaga ay qaataan waxaan leenahay dirisnimada iyo walaalnimada iyo ehelnimada waa waxa bini aadamku uu ku wada nool yahay ha u fiiriyaan Ciise Maxamuud oo Garowe degan oo caasimadii Garowe degan oo aad arkayso in ay dadka goboladan degan khayraadkoodii iyo hantidoodii ku dhisantay Garowe inay maanta uga faa'iideystaan jaaniskii ay u heleen dadkan inay dhulkooda boobaan waa nasiib dar laakiin waxaan u maraynayaa ka faa'iidi maayaan anigu waxaan leeyahay reer Garowe caqligooda ha shaqeeyo isimadooda iyo dadka wax garadka iyo dadka aqoon-yahanka
iyo dowladoodaba waxaan ka codsanaynaa in arrintaas ay dib uga noqdaan, dhulka inay daayaan, faraha inay ka qaadaan, dadkii lahaa inay u daayaan. Walaalka wuxuu ku fiican yahay hadduu maalin iska khayra bido inuu ogaado cidda uu iska bidaya inay walaalkii tahay. laakiin haddaad walaalkaa ku joogsato berri unbuu isaguna meel kale un kaaga soo bixi. ragga lama ciilo oo lama dhibaateeyo oo ragga looguma tago. waxyaalo badan baan Puntland ka tirsanaynaa ama nimanka walaalada iyada ah oo majeerteen ka tirsanaynaa oo ah inay noogu tageen oo noo tuuteeyeen Isaaq, inay wax nagala qaban waayeen oo hiilaan ka weynay Isaaq. dhulkayagii iyagoo dowlad ah oo aanu isu dhiibnay oo aanu Puntland ka mid noqonnay inay dhulkayagii Isaaq wareejiyeen. simada waxaan leeyahay goboladan u dhashay Jaanis baa maanta bannaan. Jaaniskaa bannaani meesha la yidhaahdo Yoocada iyo Gaal Jabay iyo Birta Dheer inta u dhaxaysa iyo xadkii dhulbahanta iyo ay lahaayeen iyo majeerteen oo maanta cid waliba waxay ku xisaabtamaysaa ama dadka ku haysataa waxa weeye waa xadadkii isticmaalku uu qabaa'ilka Soomaaliyeed dhex dhigay. qabaa'ilkii xadkii layna dhex dhigay oo aynu isku naqaanay oo heshiiskeenu ahaa inaynu kala leenahay. taariikhda cid garanaysaa ma jirto Garowe meel ka sokaysa oo Ciise Maxamed uu haltaa ka ku leeyahay. cid garanaysaa ma jirto. waxaan rabaa inaan digniin yar oo kooban aan ka siiyo barasaabka gobolka Nugaal ina Faraweyne oo barasaabka ah gobolka Nugaal oo ka wada fidmo bixin iyo wow iyo deegaamada dadka wada dhashay ay wada degan yihiin. waxaan kale oo digniin isagana siinayaa Cabdiraxmaan Maxamed Faroole oo ah madaxweynihii hore ee Puntland. waxaan kale oo digniin siinayaa beesha Ciise Maxamuud iyo dhammaan gebi ahaanba Puntland oo garabka ku siinaysa fidmada ka socota bixin iyo wow iyo deegaamadaas imika ay ka taagan tahay xiisadu. waxaan leeyahay ka tanaasula fidmada aad halkaa ka wadaan, ka tanaasula. Soomaalidu wax ku maamaadaa nin baa yidhi baa leeyahay habar jeclay geel lahay dhicin fataxmadaada iga qarso. waxaan leeyahay Puntland Cabdiraxmaan oo madaxweyne ka ahaan jiray iyo wiilku adeerka u yahay Farool ina Faraweyne waxaan leenahay geel laha noo dhicin fataxmadaada naga qarso. waxba cadowna ha naga kicinin, ha nooguna hiilinin, war naga daa dhibaatada. waxaan u sheegayaa taaka intaa leeg oo dhulbahanta leeyahay Sool Sanaag iyo Cayn inaanan cidna uga dulqaadanayn, aanu ku dhimanano. hadday ka tanaasuli waayaan oo ka laaban waayaan in dhulbahante Sool Sanaag iyo Cayn beelaha dega dhammaantoodba taaka intaa leeg ayaan ka dulqaadan doonin. waxaan leenahay fidmada dib uga laabta, ka toobadkeena, ka qaata ciidamadiina. haddaad ka qaadan weydaan wixii aad ka heshaan waxba ha naga siinina. waxaa la yidhi libaax daali dirirtiisa loo tagaa. dhulbahante ninkii dagaal u ilcaamiyaa isagaa cirka roobkoog. waxaanu naqaanaba dagaal baa jira. waxaan leenahay libaax daali dirirtiisa loo tagaa. wixii aad ka heshaan haddaad ka laaban weydaan dhismaha iyo dhulka aad ka wadaan fidmada deegaanka wada yaala waxba ha naga siinina. qodobka saddexaad ka hadlaya waxa weeye deegaamada Sool Sanaag iyo Cayn. waxaan ugu baaqayaa ummadda ku nool ninkii dallaba adduunyo leh. waxaan u maleynayaa maanta waxay maraysaa ogaadeen sidii haruurka iyo hilibka loo boob meeshii laga yidhi. deegaanka iyo deegaamada waad aragtaan gees kastaba in la boobayo dhulkii dhinac kastana beelahan aad moodid in loo tashaday. waxaan leeyahay waxaynu kaga bixi karaa caqabadaha maanta ina hor yaalla maalin kastabana soo noqnoqonaya. aad moodidna daafaha Sool Sanaag iyo Cayn dhammaantoodba inay ka jiraan. waxaynu caqabadaha kaga bixi karnaa inagoo u midowna. waxaan leeyahay aan deegaamadeenna u midowno. hadday tahay faranti Ari Boob, haddii ay tahay farantii meeshii la odhan jiray Balle Xasan, haddii ay tahay faranti bixin, haddii ay tahay ilaa Jiidali. waxaan leeyahay aan dhammaantoodba u midowno
caqabadaha inuu hor yaalla oo aada mootid deegaamadii in uu buuxsamayo sidaa daraaddeed deegaamadu markay buuxsadaana cid kasta oo itaal daran aada moodid in la riixayo ma itaal darin aan u midowna deegaamadeenna waxaa laynagu arkay kala qaybsanaanta iyo nin kala jeedjeedada laynagu arkay waxaan leenahay waxaan kaga bixi karnaa caqabada inagoo u midowna Cabdiraxmaan Jaamac Cabdiraxmaan Wadani